madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo labadii casho la soo dhaafay ku sugnaa magaalada barakeysan Maka al-Mukarrama ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo isugu yeeray boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdulaziz. shirkan ay isugu yimaadeen 22 dal ee ka kooban Jaamacadda Carabta waxaa lagu lafaguray amuurihii u dambeeyay ee taabanayay dalalka bahwadaagta ku ah ururka Jaamacadda Carabta. shirkan intuu socdayna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu kulan doceedyo la qaatay ninka haatan hogaamiya maamulka ku meel gaarka ah ee Suudaan sareeyo guud Cabdulfataax al-Burhaan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Qatar Sheekh Abdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna wuxuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Qatar. madaxweynuhu sidoo kale maanta wuxuu kulamo la qaadan doonaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay shirkii xalay iyo kan caawa la qaban doono oo ururka iskaashiga islaamka isugu imanayaan.